السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. sida madaxweyne xasan uu sheegay waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiino gaar ahaan waalidiintii iyo ahladii ay ka geeriyoodeen dadkii maanta qaraxii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay hantida ku burburtay. kuwa dhintay waxaan leenahay Allah u naxariisto, kuwa dhaawacana Allah caafiyo, hantida burburtana waxaan leenahay mataqaanaa bedel khayr Allah siiyo. runtii madaxweynuhu sida uu tilmaamay waxaan soo aragnay wax xanuun badan, dad meedadkooda la kala garawaayay, dad dhaawaca iyo dadkii suuqa u aaday ay ka dhinteen iyo dad aan la aqaanin ilaa hadda dadkoodii aan la helin. waa garan kartiin duruufta dalkan uu ku jiro. qof maanta dhintay iyo qof dhaawaca labaduba waa culays. guriga ay ka baxeen culays ku yahay. qaran maanta u taagan oo caawinayna annaga nooma sooma arkin. sida mataqaanaa dadka Soomaaliyeed lagu yaqiinay oo ama caadada ahayd, madashu waxay rabtaa inay baaq u dirto dadka Soomaaliyeed inay dadkaas u gurmadaan, la garab istaago. dalkan mushkil aan la noolnahay. mushkilada aan la noolnahay waa mushkilada al-shabaab iyo al-qaacida. waa dhagar qabayaal ka been sheegay diinta islaamka, u soo joogay maalin walba inay dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed si macno la'aan ah. marka runtii filkaas aadka u foolxun waa cambaaraynaynaa. waxaan leenahay diinta islaamka ma qabto arrintaas, dadnimaduna ma qabto, maxaan ku yiraahdaa Soomaalinimaduna ma qabto. qofkii hadda maanta u haysta inuu janno ku galaayo qof miskiina oo risqu doona, dilkiisa ama dhaawaciisa ama burburinta hantidiisa wuxuu ka been sheegay diinta Ilaahay, wuxuu ku been u abuurtay Ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaan dhihi lahayn dadka Soomaaliyeed ma looga soo wada jeestaano. dhallinyaradaas wixii la marin habaabiyana waxaan u sheegaynaa arrintaanu diinta islaamka waa ka fogtahay. dhiig muslim janno laguma galo, cadaabaa lagu galaa. war jannada haddaad rabtiin beerafasha, masaajidda aada, qur-aanka barta, ummadda kaalmeeya. laakiin maalin walba inaad hooyo soo dadaashay carruurteedii oo jaamacada dhammaysay ama u socotaa ka ooyinsiisiin ama aabba ka ooyinsiisiin ilaahay uguma dhowaanaysiin. marka afkaartaanuna afkaar diineed ma aha, waa afkaar lagu xumaynayo diinta islaamka, afkaar lagu ciqaabayo dadka Soomaaliyeed. waxaan aaminsannahay inay ka timid dibadda, inay ka dambeeyaan dad ummadda cadow ah. intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo shabaab iyo al-qaacida maanta dalkan uguma horeyso. madaxweyne xasan waa soo joogay, anigu waa soo joogay. waxaan aaminsannahay shabaab inay ka xoog badnaayeen. awoodda Soomaalida u diyaarsan ama dawladda Soomaalida u diyaarsan inay intaan ka yareen, kaalmada laga helayo ajnabiga inay intaan ka yareen, haddana sidaan si ka habboon in loo maareeyaan aaminsannahay. magaaladu dhan wada xiran tahay. waxaana lagu marmarsiyooda arrintaas arrin amni inay tahay. marka la fiiriyo qaraxii Zooba ka dhacay iyo qaraxan marka la isku daro tirada ku dhimatay aad ay u badanta. waxa keenayana waxa waa istaraatiijiyada khaldan oo amniga loo sugayo oo u suura gelinaysa cadowga inuu mar walba oo doorto xilliga oo rabo iyo meesha oo rabo in uu doorto oo dadka ugu badan oo laayo. marka dawladdu waxay kaalmeynaysaa argagixisadu inay fuliso howlaheeda argagixisanimo sida ay jeceshahay, mase waxaa loo doorto dawladdu inay ka hortagto arrintaas. waxaan u maleynayaa jawaabta wada ognahay. marka waxaan rabnaa dawladda inaan ugu baaqno, waa ka gaabisa mas-uuliyaddeedii. يعني استراتيجية أمني أو فشلتي حل هره إن 3 سنة أي صعود ومالين والبقى حر للدبا أرين خلص واحد وحن لأنها مركز أرين تاس دق هلو بدلوا سراكيش أمني ده يقدر كمسؤول كأمني وإن الحسابية دولة نيمة وحسابتهم صورة قل مع مالين والبقى قرح دعو وهذا نقف أن له حسابين وقف سؤال له ويدينا أي سنجرين أنا تصح معه runtii waxyaabaha laga naxo waxa kamid ah marka dadku ay ka hadlaan war dhagxaanta laga qaado ummadaan oo xal loo keeno in dhagaxyada la sii badiyo arrin laga naxo waay. waxa kale oo rabaa nuqdo muhiim ah in aan u gudbo. 3 sano la soo dhaafay waxa socota burburin ciidamada qalabka sida wax laga aamusi kara ma aha. waqtiga la soo galiyay dadka mataqaana ciidanka ku jira duruuf adag ay ku soo dagaalameen, duruuf adag ay ku soo dulqaateen, naftooda ay ogolaadeen in maanta loogu abaal mariyo waxaa tiin ciidan qabiil leedinma baahna kuwa kala la sameeyna
weliba iyadoon walba ciidan la diyaarsan kala wareega shaqada maanta waxaanu ay dhacaan inta waxaad looga xumaado waaye 3 sano ciidamadii aad soo tababarteen aawen maxay qabteen ciidamadii leedinku wareejiyay xaggaa ka ogtiin maalin walba dagaalla faashila inta u dirtiin oo iyaga madaxa isu gelisiin ayaga la soo laayo oo hubka laga qaato oo hubkaas haddana ummadda lagu laayaa keentay waxay sababtay dawladdu in dadka Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho la canshuurtooda lagu dilo qarax maanta ka dhacay ex control oo canshuurta magaalada Muqdisho laga qaado yaa lagu dilay dadka aan soo aragnay kulligooda waxay ahaayeen dad u soofay inay ama soo helaan noloshoodii ama wax soo bartaan dawladda waxa laga rabo waxa waaye dadkaas inay protect garayso inay ilaaliso yaa laga rabay ma dhicin arrintaas ولنا دولته مركز لقاها اللي وحيلة يعني ما كانان wax macna leh oo lagu qanci karo warmagaaladan waa la wada joogay 15 May xabadu ka soo dhacays haddana waa la socday qarax waa dhacay dib waa dhacay laakiin sidaan ma ahayn magaaladu waa isu fureen qodobka kale oo ka sii muhiimsan waxa waaye dalkan dagaal suqay ka soo baxay waxa u baahan yahay dib u heshiisiin waxa u baahan yahay kalsooni dhis ummadii maja iyo madaxin la isu galay oo dawladdu iyadu dadka la dirirto oo qof walba la dagaalanto waxay keenay dawladnimada inay barbarto waxay keenay shabaab in fursad la siiyo waxay keenay dhagar qabayaashu inay xoogeystaan dadku waxay xukun tagaan al-shabaab ma beentay ama soo runtay madaxda ka shaqeysa magaalada Muqdisho qaarkeed al-shabaab soo xulay wada ognahay dawlad kuma noqon karna sidaan ummadda Soomaaliyeed ha u istaagto sida dawladdu gahil lahayd dawladdan ani waxaan aaminsanahay waa in la weydiiyo su'aashaas haddii aysan jirin cid weydiinaysa shacabka weydiinaya waxaan u istaagaynaa shacabka inaan abaabulno bannaan baxaan dawladdana su'aalaha ay weydiiyaan haddii kale dawladdu waa inay ka jawaabtaa waxa dhacay waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum.